بسم الله إلهي وحن كبرينا إنه إلهي إن نبتقليه عركنا مدر خير قبائنا كسيو مع العافية ومسكورا ومسكين كالكال ولو نخسروا كذب ولو كريم له بدنا وحق سارين يلين إلهي وحن كبرينا نبتقليه إلهي وحن كبريا دad kan social engineering baa lagu sameeyay maskaxdooda waa la jahayay waxa loo jahayay maxaan cunaa ilaahay waxaan ka baryaa in ilaahay inuu fahansiiyo inuu irsaaqadeena isagu qabo wadkeenana inaga inuu ku qoray oo aan labada qofna dhaafin waxa bilowday oo la bartay hadii qof dan ka hadlo in la yiraahdo federaalka lacag siiyay وراني فدرال كدي الحق السيان حتى هذا السيان حق ما أقوله وحق وحنقوله هو ومضحدي دالك الصومالية ولا كده يعيد حلقة فدرال جاهل الميو ولا لو عند ماشي بنتلان جاهل وحنقوله فدرال جاهل سوت بنتلان وهو يدي فدرال كالصومالية لستي كوي ذي كذا نقاله هذا دعان كذا درشة هذا نفس هذه المال كذا كوي ذي ما هنا أقولاته ولا قد من يا الله صعيه هران وقهلي هذا وحكم القلمي كو ومدى الصومالي وحنو الشيقية هبين دو سيلبان داوني قبل فربضان هوتيل جران لغو حريي لوغا ورميو نعيبك دولة لماذا الصومالي أنا وحنا الله وحنا دين كورميا جعلك قرن صوماليات جعلك باسم بنتلان يهر مركز جعلك الصومالي أردن ملك استهجو وحنا دين كم بشاركية أنا وأنا سكين بر إما تقارن دين موت أنا وحنا كمل هاي ذاتك إلهي أود وشيء إنه مدحو شاقان شيخا إسنكا إيا أبوانكا إيا نينكا ملحظة أفرتا قف إلهي باور بوشي إن دادكو الله وحالي دي كبالا قاضا سومالي لان جيجيجا لان جبوتي لان بيلبا لان كسمانيا لان وجير لان ميل كستو قف سومالي جوغو واكا قبيايا واكا هلايا دنتيس waxaan ka hadlayaa bulshada geeska Afrika oo dhan danteeda bulshada caalamka oo dhan danteeda waa dantayda eeg dhaqaalaha meel ka dhacaso adduunka oo dhan uu ka dhacay bismillaah waxaan rabaa inaan wax yar sheego tixdan waxa la yiraahdo magaceeda isku diin waxay ka hadlaysaa anigu dawladda saan u aqaan horta dawlad anigu waxaan u aqaan laba حرف واللغة الصومالية كجرة ما عرب ولا يعني بلي تل والضوء وشرعي ولد وعدالة ضوء لقول ذي شرعي لقول عدالة سمية بعنو ننكستو مضحك كرهبها بعير مركب بسم الله واحد دومي قرن كاني oo doorshay quruxdiisi oo dawga ka habowshay dadka waxa culeysiyay dilka iyo dhacana keenay iyo gulufka duulaanka iyo daadufka iyo caydha iyo dalowga maariyaadka waxaan wali dib loo eegin dadna aanu isweydiinin dawladii ku dhaqankeeda hay marka duulka weedhe markaan doonay nuxurkeeda oo daashay madaxayga nin deeyaba ku sii dayday ilaa doorka Umar fiirshay waa Umar bin Khadaab dawladnimo darkan ma darkan iyo darkaba ma halka laga dayday ma idooro kaliya ma darajiye xilqad ma kursiga ka dagin ma madaxnimo ku dir ma sinji iyo dirso ma dadka yaaxiga ma weydiidan yahay ma way doonaya ma difaaceedu gulf ma dabaabada qarxada ma diriis iyo qoryana ma wax la garabtiyo baruurteedu sida awlal dibi ma doolaa ida ma dambarkay dhaydeedu aanaha darmaan ma يا وحلا دودو دانتيد ماها وحلا ديبدغانا ماها دولديو ku dhaqankeeda midka doonayo gacal leh aniga saana ila sax
dugsigii iyo gabaadkeedu dastuurkii axdiga weeye wadar loo degsaday weeye dabadeedna fulay weeye koow cusubkay ku darartaana daraasado cilmiga weeye doogay ku nacdaana daacad iyo garsoor weeye daribtiyo baruurteeda dambarka iyo dhaydeeda waxaan aragu dayn weeye dareenkuna og yahay weeye midka taa ka dudayowna ama diidan u gacalle ha ka doon meel daran ha ku daalin dow maran habba gulufa dooyeyni habba door ha naga layni habba doob ha gowriciye waxa dooni qaran ma walaal dawladnimo ma anigana dantay ma adna daawada ma marka daaba soo ma waxaan leeyahay shakhsiyaadka ku guuldaraystay hanaanka dawladnimo qorshaha dawladnimo saanqaadka dawladnimo yay ummadda Soomaaliyeed ku rafan meel kasta ha joogeen war yay ku rafan qashaabiir garaadsay waa soo jeednaa wallaahi baanan idin daynay waa idin kula direynaa noloshayada maaha inaan idinka gardaranahay waxa iyaga aan idin dhiibanay oo ilaahay idin dhiibay baan wanaagooda ka rabnaa kow waxaan rabaa inaan wax yar ka sheego 94 anoo qarna joogan in la yiraahdo qowlo warsama shido baabosaas warqadiga soo dhiyo wuxuu shubow geey wuxuu yiri midka laga dhacayo kan dhacaya labaduba dhaarac lama degaan iyo dhowracood ku foofshee horta dheexay iska leh mise dheesha halabsigu sangaxdo dimeer iyo dhinkore ma dhaafsana wuxuu kala wadiiyay la kafaaraya anugu siyaasadii ma dhagar baa dhudhun iyo maxoog baa dhusashiyo ma boob baa isriyo ma dhalasha ma dhoodhoob khiyaana ma dhabaha nasteexa dhagar iyo matuuga intaan uga jawaayo aan rabaa inaan idin sheego bismillaah abwaan dhaliya suugaan dhihideeda aan ku imaansadu dharaar hore u bandhigay dadweynaha dheeha ugu macdaray wuxuu yiri ma dhalmo la kafaray anugu siyaasad ma dhagarba dhudhun iyo maxoogba isriyo ma dhalasha ma dhoodhoob khiyaana ma dhabaha nasteexa dhagar iyo matuuga dhabahaan su'aasha dhumcudeedu weyn tahay markaan dhaagay garadkay dhankayga waxaan u haystaa walaalayaalow aniga waxa ila tahay siyaasadii ma aha dhagar dhudhun iyo ma aha xoog rood iyo faan ma soo galo dhalashiye qabiil ma leh dhowris laguma garan karo ma dhamaato waligeed ma leh dhogorti maameed dambal ma aha diircada ruux ma aha qaaja dhicir ma aha iyo qoos dhaf ma aha iyo lix midabley dhalaal ma aha maariin dhuxul ma aha iyo madow dhibrin weeye reer maar waa dhaabayn xilliga jira waa dhabaan dhow sabitaan dhib baa lagu yaraystaa dan baa lagu dhaweystaa hadba hawsha ku dhiman dhumucdeeda ku qiyaas qof markaad ka dhaadhicin lugmadiisa adigoon intay dharsan tahay garan ha u saarin meel dheer uga dhiibna hays oran dadka gabigi meel dhow qaar baa ka dharsay waxaan ka codsanayaa aqoon-yahaminta siyaasiyiinta dadka mujtamaca marka lala hadlayo in lagu talagalo in qofba meel wax ka fahmo mujtamacana waxaan ka codsanayaa markii siyaasi wax doonaya wax qurux badan u sameeyo in la weydiiyo sidee ku fulinaysaa noo sharax na fahansii intaasoo dekood baan siyaasad ku dhisaysaa eg ugu dambayn dhaqanka Puntland meel kasta ha joog isin iyo caaqil ilaahi idin abuure idin khalqe sida idin abuure awooda idin dhiibay baan idin ku dhaariyay hanoo xulina waxa xuli jileen hanoo xulina reer hebel yaa u qaylo badan ama u lacag badan ilaahay baan idin ku dhaariyay kuwa gobolka deganaa oo reer garow ay maqlaysaan sagaalka qof ee nugaali leedahay sagaal walaalaha deeyihiin sagaal qof oo istaahila ummadda inay matalaan oo laga raacay kow wadaniyad labo aqoon dawladnimo niman dawlad aqooni ma wanaajin karo sababtoo waa ka wiilka gabanka ay ridda nooga soo galay isagoo saas leh oo inta fadhiyo jooji ma yaqaan dastuurkiisa ma yaqaan waxa qabanayay adeer niman tolka iyo xamar degan oo gaali wax oran jireen duubninka xalin jiray yaqaan dawladnimadu waxay u baahan tahay aqoonteeduna xataa wax buug laga akhriyo maaha buug laga akhriyo waa leedahay laakiin baraatika rabtaa iyo kuwa ilaahay maskaxooda fahansiiyay waad maadsantihiin maxaa inoo ballan
nabadoono waxaa inoo ballana inaad soo xushaan dad aniga mid kale idiin sheegaya oo aan la yaabay oo aan u baahnay in caydeeda layga daayo waa isnaqaano reer Puntland baynu nahay nin aan hubo inaan ka fiicnaa wuxuu oranayaa madaxweynahan doonaya intuu aniga yimaado waa mahadsantihiin